بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورية فدرال كصوماليا دولة هيرشبيلة حفيزك مدحوينها عاوة أو تاريخ دو أي تهي 17 فبرايو 2022 كسعة الضمان سراكيش هوسكو حسن وجيدو مقعابس قدي باريس مدحوينها دولة هيرشبيلة مركو أركي قضبك كنتي كواد الدستور كدولة هيرشبيلة markuu arkay tala soo jeedinta hay'adaha amniga ee dawladda Hirshabeelle markuu garowsaday in laga maarmaan ay tahay in baaris degdeg ah lagu sameeyo dilka Allaha u naxariistay taliyihii saldhigga booliska degmada Beledweyne laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege wuxuu madaxweynaha soo saaray xeerkan qodobka koowaad waxa guddiga hoos ku xusan loo magacaabay baarista dilka taliyihii saldhigga degmada Beledweyne Ganshaale Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ku-xigeenka xeeraryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiye 2 Ganshaale sare Xasan Dhicisow Xasan taliyaha booliska dawladda Hirshabeelle gudoomiye ku-xigeen 3 Ganshaale sare Isaaq Cali Cabdulle taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan xubin Ganshaale dhexe Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay taliyaha guutada shanaad ee qaybta 17aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin laba xidigle Colaad Cabdullaahi Dalabey taliyaha nabad sugidda gobolka Hiiraan xubin laba xidigle Muuse Salaad Wehliye xubin laba xidigle Xuseen Axmed Maxamed xubin xeerkan waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo uu saxiixay